ma ahayn inuu isu soo safo iyagoo isaaqa dhulbahante waxaanu leeyahay xaaladda dhulbahante iyo gobolkaas sool gaf baa ka dhacay waxa ka dhacay gaf waxa ka dhacay mas'uuliyad darro waxa ka dhacay dawlad xumaan waxa ka dhacay mas'uuliyad darro tii ugu weyneyd waxa ka dhacay arrin aan la qaadan karayn imikana ta lagu wada waa arrin aad u foolxun 31 sanadood bay Soomaaliland jirtay wasiir aan macna lahayn oo ina cali kooro midhana oo aan matali karin dadka ayaa loo magacaabay waxa allaaliyo wuxuu taray iyo wuxuu qabtay midna ma jirto guurtina waxa looga dhigay indho wasiirna waxa looga dhigay ina cali koore iyo halkii qambi oo labadaba soo waxba u dhiban waxaan leeyahay dadkaas ma geeyaan waxa dadka loo fiirsado hala siiyo xaqooda waxaan leeyahay bixow waqtigaagu wuu dhamaaday wuxuu ku dhamaaday toobad xumo wuxuu ku dhamaaday macna la'aan wuxuu ku dhamaaday mas'uuliyad darro inaad kala kaxayso intii saaq hadalka kala joogtay waad ogeyd maantana waxa dabacday inaad intii daarood iyo gadabirse ka kaxayso meesha waxaan leeyahay haddii maanta gadabirse soo kaco oo yiraahdo iyana sida laasxawlo dagaal abaabulaan xaq bay u leeyihiin dadka caburin waxba ma tarto wixii siyaad bareen ka diidnay laga yeeli mayso waxaan leeyahay saleebaanow aqliga aad saaq ku kala kaxaysay ayaa weli aad haysaa maanta la doonaysa inaad muuse isku barbar tagto halkan ka qaban lahayd oo aad leedahay waxa weeyaan dagaal war dagaal waxba iska cilmisan markay runta tagto dagaal reerun baa tahay dawlad noqon maysa reer baa tahay shuftay baa tahay xalayta waxaynu arkaynaa madaxweynaha gudoomiyihii golaha guurtida oo koox wasiiraah iyo mid la lahaa indha ayaa la yiraahdo oo aan wuxuu ku wanaagsan baan la garanay oo isbarbar taagay madaxweynaha oo leh madaxweynaha ka hadlaya xaalad dagaal iclaamiyay xaalad dagaal laascaanood waa Soomaaliland waxay wax ku tahay labada daraf haddii labada daraf la xumeeyo oo lagu qaado dagaal waxay noqonaysaa Soomaaliland meel qaawan qabiil bay noqonaysaa shalay tan madaxweynuhu wuxuu ku hadlay gudoomiyaha golaha guurtidu inay yihiin niman isaaq ah dad kalena aanay u baahnayn maamul yaroo maamul isaaq la yiraahdo ay madaxweyne iyo gudoomiyaha golaha guurti ay ka yihiin wasiirada joogana ay yihiin wasiiro isaaq ah waxaan leenahay arintaasu bulshada Soomaaliyeed way taqaanaa dadka reer Soomaaliland degan hadday tahay gadabirsi hadday tahay dhulbahante hadday tahay warsageli hadday tahay ciise iyo inta isaaqaba bulshada Soomaaliyeed way taqaanaa ma haddana ajnabiga dadka lala hadlaya ummadda reer Soomaaliland waxay ku wacantay inay inta badaqadii qaryadii juqraafi ahaaneed ee Soomaaliland lahayd in la wada ilaaliyo oo nabadgelyada la ilaaliyo oo dawlad loo noqdo in la ascaanood loo hanjabo saf la soo galo oo kuwa daarooda gobolada kale jooga maamulada kalena la aflagaadeeyo soo loo hanjabaa meesha mayool afdul maasiba looga baahnaa maanta ina bixi inuu kula hadlo Ethiopia inuu kula hadlo Kenya oo yiraahdo dadka dagaalada iyo hanjabada ka soo wada dhexdiina iyo dawladihiina dhexdooda lagala hadla iyo dadkayga iyo dalkayga burburinile inuu sidaa u hadlaabay laakiin ma yahayn inuu u hanjabo daarood ma yahayn inuu isu soo safo iyagoo isaaqa dhulbahante waxaanu leeyahay xaaladda dhulbahante iyo gobolkaas sool gaf baa ka dhacay waxa ka dhacay gaf waxa ka dhacay mas'uuliyad darro waxa ka dhacay dawlad xumaan waxa ka dhacay mas'uuliyad darro tii ugu weyneyd waxa ka dhacay arrin aan la qaadan karayn imikana ta lagu wada waa arrin aad u foolxun waxaan leenahay meesha hab nabadgelyo ha loo diro salaadiin ha loo diro culimadiin ha loo diro dad cayaanaho wanaagsan oo wax kala garanaya yaan loo dirin askari waxba ma xalliso qorina waxba ma xalliyo waxaan leenahay bixow waqtigaagu wuu dhamaaday wuxuu ku dhamaaday toobad xumo wuxuu ku dhamaaday macna la'aan wuxuu ku dhamaaday mas'uuliyad darro inaad kala kaxayso intii saaq hadalka kala joogtay waad ogeyd maantana waxa dabacday inaad intii daarood iyo gadabirse ka kaxayso meesha waxaan leenahay haddii maanta gadabirse soo kaco oo yiraahdo iyana sida laasxawlo dagaal abaabulaan xaq bay u leeyihiin dadka caburin waxba ma tarto wixii siyaad bareen ka diidnay laga yeeli mayso magaalada laascaanood la yiraahdo iyo dadka degan iyo reerka dhulbahantaba la yiraahdo iyo warsageli harti in la soo dhaweeyo in dawladnimada ay qayb ballaaran oo laxadla ka helaan 31 sanadood bay Soomaaliland jirtay wasiir aan macna lahayn oo ina cali kooro midhana oo aan matali karin dadka ayaa loo magacaabay waxa allaaliyo wuxuu taray iyo wuxuu qabtay midna ma jirto guurtina waxa looga dhigay indho wasiirna waxa looga dhigay ina cali koore
iyo halkii qambi oo labadaba aad soonayso waxba u dhiman waxaan leeyahay dadkaas ma geeyaan waxa dadka ha loo fiirsado hala siiyo xaqooda aan leeyahay Saleebanow aqliga aad saaq ku kala kaxaysay ayaa wali aad haysaa maanta la doonaysa inaad muuse isku barbar tagto halkan ka qaban lahayd oo aad leedahay waxa weeyaan dagaal war dagaal waxba iska cilmisan markay runta tagto dagaal reerun baa tahay dawlad noqon maysa reer baa tahay shuftay baa tahay ka joojiya waxa ummadda iskugu yar reer Somaliland u dira la saxalood culimo iyo dad aqli leh iyo salaadiinta ka daaya caburinta iyo ciidamada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.